Okay, waxaan rabaa inaan qaato goldi bay baan ka arkaa xogaa liquidity hoos u ii qaaday marka liquiditygaas saraan rabaa inaan u qaato ilaa kotobi baa ka dayo waxaan isticmaalayaa waxa weeye strategigaygii nidaamkayga caadiga ahaa waxaana ku yaraynayaa losska iyo muxuu ahaaye kuna badinayaa rewardka iyo inuu guuleysto tradeku order flow advanced order flow baa isticmaalayaa marka interi baan ka eeganayaa epica okay xoogaa buu iga yara tegey transactionku sidana kala noqonaya 1 minute rejection ka sameeyey hadda isfilib garaynaya okay baa kaga qabtay buy xoogaa liquidity hoose ma jiro oo hadduu aan arko momentum hoos soo dhacaya waa manage garayn doonaa waxaan rabaa in uu qaado liquidityada halkaas sare yaallo oo dhan ilaa iyo okay okay xagga hoose yah liquidity badan hoos ma yaalo hadduu hoos soo dhaco khatar bay noqonaysaa si fiican buu already u dhaqaajiyey good management fiican baa samayn doonaa sababtaa suuqan you never know wax kasoo bixi doona laakiin waa sida ugu fiican oo manage garaysid baa laga rabaa waxaan rabaa inuu suuqan wigaa yar qaado kadibna uu liquidityga tago okay 57 ilaa iyo 58 ilaa 60 uu hadhow insha allahu tacaala ii tago hadduu ilaa 60 karo I think waa konton bib baa ka rabaa laakiin waxay eegi doonaa ugu yaraan 2 r inuu isiiyo hadda 3 r wey kontonka bib laakiin 2 r inuu isiiyo araa sababta 16 bib meelahaas oo sl baan geliyey riskiga waa u yareeyey هذا تركي لبعض النقطة ما أنت عن قاطه تركي واد إيش سيشن مقاتل لندن حما قاطع نيويورك أوكي يا سيفي عم بوريحة نايس 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 I think that's good that's good that's good that's a good one yeah كان الوين بينه سما اسمه so هل كان liquidity بقى يلا وهذا تابتي وكسو يرى اللعبة نايو يا حاجة استولس كان سوي الدركي مرة وإنه هل كاسو كوربرا 5 minute كا وكلا rejection في عن أبو سمية هوس كدبولش في عن بوكو حد ما 15 كو inuu wiga ay qaadaan rabaa iyo wigskaa sare haddii uu qaadi karo okay so kor baa usoo yiri durkii xoogaa liquidity yar baa wuxuu yaalaa meesha intriga ku beegan taasoo baan intriga u keenayn weli oo inuu intriga mar labaad iman karo kadibna uu bixi karo ayaan aaminsanahay marka yah stolska halkaas u deediya good waxaan rabaa inuu areadaa qaado ku socdo 3856 and then ilaa iyo 5758 meelaha markuu gaaro hayska sii jeeyo break even keenaya marka marlaad ma soo noqon karo halka liquidity fiican baa yaalla soo ma jeedid waxaa yaalla contract aad u fara badan oo konton iyo afar bay yaalla ilaa 550 and then lowskan xoogaa liquidity ayaa yaalla marka way adag tahay inuu soo dhaco suuqaani laakiin mar labaad inuu PE imaan karo ayaa dhici karta lataasi waxaa dhaca okay momentumka korka ha igu wado hadda rabaa inaan break even keeno wax yar kadib kaalka hayl ha jabiyo markaas break even ku tuurayaa xoogaa goldi wuxuu ku fiican yahay wuu dheereeyaa wuxuu ku yahay haddii processonkaaga culus yahay inaad scalpin oo kale aad iska ilaalisid tusaale qofka dad waxaa jira u baahan inay ku fikiraan daqiiqado haddaadan seconds ku fikri karayn oo markaba aan xidhayn marka manage garayna stolska hore soo rarin go-aan qaadan way kugu adkaanaysaa okay momentum fiican buu ku socdaa good break even ku tuuraya markuu hayga qaado hayga yar hayga qaado break even weeye marka insha allah and then waxaa eegayaa the resting kudka bibisiin karo iyo wixii ka badan hadduu soo noqdaan it's okay waa trade aan tijaabiyey I think hadda wuu qalmaa break even yaa wuu qalmaa sababtoo ah xogaa riski macquula ugu jira 1% meelahaasaan geliyey 2% aan ka rabaa ilaa 2.5% okay good
Oh, nice, 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 nice. Thank you, Goldie. Areada liquidity uu yaallo waa la yaqaanaa oo meel virusku aad isugu dayaan absorption laga samaynayo laga celinayo viruska la nuugayaa. So u fiirso key levelka waxaa yaalla 60 oo meelaha key levelka sababta inuu aadka ugu isticmaalo. So 60 ha taabto intaa yar ka digi maayo sababta uu gaari doona. There is very high chance 90% inuu taaban doono. The moment uu taabto uu soo kala wareegayaa waa inaa iska xiro markaa management sameeya. Yeah. 40 bib buu wadaa ku dhawaad. So 45, 42 hadduu isiiyo it's okay. 50 bib kama wada rabo. 2R aduu hadduu ii buuxiyo wax yar. Oh good. 60 wuu taabtay. Fiiri 60 uu garjigta garay hadda. 60 liquidity fiican baa yaalla waa laga noqonayaa. Waa laga noqonayaa. Hoos baa loo noqonayaa. So ilaa intrigayga maybe lagu soo laaban karo. Inkastoo aaminsan xogaa hal mar oo waxa u hadhay bush ah uu kor riixi karo. Laakiin intana aan iskaga xidhay suuqaas. Yeah, liquidity fiican baa halka ka galay. Absorption fiican baa ka dhacay. So pullback ta kaliya soo sameeyo waxay tahay 20 bib hadda fiiri. 20 bib pullback fiiri. Already 20 bib pullback uu sameeyay. I think this is very important inaad taqaan liquidity-ga iyo dynamic-ga suuqa si isu bedbedelo. Haddaa gold oo kale trade garanaysid iyo xataa haddii aad forex beariska aad trade garanaysid. Okay? Marka intaas oga baxay maybe mar labaad inuu halkan noqdo sababtoo halkan xoogaa liquidity yar ayaa yaalla. wayna kusoo badanayaan hadba oo hayga mar labaad qaado hadduu doono 10 bib oo kale ku daro maybe laakiin intaas oga baxay ani 40 bib buu isiiyey bes. saaxiibayaal rejection dheer buu soo sameeyey suuqa already marka ice marketkayga aan ku qaatay bes. akoon kale waa ku qaatay laakiin interiga mental stop losska xoogaa bullback uu soo sameeyey haygaa qaaday. عندما مرات بصير سعودي حضن حقوق وصوت هذا يعني so maybe سلك هسه كلوا كفاية سلة لكن ما يدري